xaflad sare loo soo agaasimay laguna taageeray ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya ayaa ka dhacday gobolka Eastern Cape magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika. xafladan ay soo camireen bulshada reer BE qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa madasha ka hadlay marti sharafti ka soo qayb gashay iyagoo dhamaantood hambalyo u diray dawladda cusub ee Soomaaliya. xafladda intii ay socotay ayaa lagu soo bandhigay suugaan ka hadlaysa wadaninimada, gabayo guubaaba ah iyo baraambur qiiro leh. ugu horreyn waxaa hadalkii hambalyada ku fogaaday qabanqaabiyaasha xafladan oo sheegay inay la dhacsiin isbeddelka cusub ee dalka ka dhashay in codsanaya in dawladda cusub ee Soomaaliya dadaalkooda badshaan si ay dib ugu soo laabtaan shacabkani ku rafaaday qurbaha. xafladan caawa qiimaha iyo qaayaha badan waxa ugu talagalnay xafladda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inaan ku soo dhaweeyno dhammaan dadka soo qayb galay oo aad u qayb weyn ka qaatay aad iyo aad u mahadsanyiin. xaflad aad u sharaf badan ahayd oo qiimo badan oo dad badan waqti ku soo dhumiyeen. waxaan nahay hooyooyinka gabdhaha ku nool wadanka Koonfur Afrika qaasatan Port Elizabeth BE. waxaan faraxsanahay waxaan salaamayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Cabdi Shire Shirdoon Saacid, baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaar. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay xariga qabsada dhammaantiinba, lama dhihin qof kaliya, lama dhihin qabiil, lama dhihin dad gooniya, lama dhihin dad dana gaara wata, waxaa la dhahay jamiican. waa aayad qur'aan ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo xadeeyay dadka tafaraaruqa wada ummadda qabyaalada ku duraya, dadka gooni ka dhigaya. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqaa fahansiyo inkaari mayno. waxaan xalfadan caaw u soo qaban qaabinay anagoo ah qaban qaabiyaasha dhammaan gabdhaha walaalahay oo ila fadhiyo oon ku jirna aniga maxay ahayd waxaan xalfadan u soo qaban qaabinay oon meeshan iskugu imaanay inaan daneynayno wadankeena dawlad ka dhaco inaan wadankeena wax u qaban rabno. hadda maanta wadankeena nabad noqon lahayd oo dawlad ka dhici lahayd wala aan joogi lahayn maanta waxaan ugu xaqiiqinaa laamiyada xaqlan because xalfadan aan saan u soo qaban qaabinay aan ku soo rafaadnay aan ku soo dhibaatoonay waxaan u soo sameynay waa dawladda nabadda wadankeena ka dhacdo oo maanta Muqdisho dhexdeeda lagu dhex doortay madaxweyne baarlamaan sharaf leh ra'iisul wasaare sharaf leh. Ali waxaan inta ka salaamaya madaxweynaha dalkanaga iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka aad baan ugu faraxsanahay wadankanaga dawladda cusub ee ka dhalatay aadan ugu hambalyeynaya anigoo magaalada gobolka BE joogo Port Elizabeth gaar ahaan South Africa. waxaan ugu hambalyeynaa anigoo kamid ah dadka qabqamiyaanka oo maxaan ku raadey xalfadan soo dhignay aadna ugu faraxsanahay muujinayno in dalkanaga wali xiisa aan u qabno. xafladan oo noqonaysa xafladii ugu horeysay ee lagu taageero ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya ayaa ka dhacday gobolka Eastern Cape gaar ahaan magaalada Port Elizabeth. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Channel, South Africa.